Ku soo dhawow muuqaalkan. Maanta waxaan ku baran doonaa sida la isugu xiro kombiyuutarka iyo moobilka. Application-ka aan hadda mouse ku dul hayo ayaad soo degsan doontaan. Extract here baad odhan doontaa insha Allah. Application-ka waxaad ka heli doontaan description-ka insha Allah. Wuxuu ku noqon doonaa file. Application ku dul jiid file-ka waniga ku dul jiiday. Kabacdi waxa loo baahan inaad ku soo xidho moobilka iyo kombiyuutarka. USB waa inaad geliso. USB waa inaad geliso. Marka hore waxaad soo gelinaysaa USB-ga. USB-ga markaad soo geliso xarig igu jiraan markaad soo saaro USB-gaad gelin. USB-ga markaad soo geliso waa inaad ku saarnaataa xaggan developer option-ka USB defining-ka raadi. USB halkaas waa inaad ku haataa connected waa inaad ku haataa. Waxa dhiman sidaad hadii option-ka inuu kugu jirin baa laga yaabaa. About ka tag software info tag. Kabacdi waxaad tagaysaa building number 7 jeer. Anigu wuxuu leeyahay already developer way ku diyaarsan tuu leeyahay. Kabacdi markuu yahay application-ka in baa laga yaabaa. About ka tag software info tag. Kabacdi waxaad tagaysaa building number 7 jeer. Anigu wuxuu leeyahay already developer way ku diyaarsan tuu leeyahay. Kabacdi markuu yahay application-ka kanaad ku siinaysaa tig isaga soo qabsanayaba. Allow halkaa allowde. Okay. Sidaasuu ku haystaa. Falillahi alhamdu. Iminka ciyaaraha kala markaan daawanayo. Isiinkan ka daawada isiinkii halkan gal. Isiinka way iska dhaaf kanige. خدك وخير ضعيف فلان ولكن فلان ما شقينا أبقى وين كراد ياسين وحنا كان تصالح markatag Chelsea oo kale ku doorjeed update weydina iska dhibtay waxaan doorjeedka aad wax weydina khariya wax iska dhaaftan khaargal wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo wada caawiye ciyaarihii war weyn ayaanu soo qaadan doonaa ku saabsan Champions League kala iibsigii Cristiano waa waryahay odagii warawgu ku kacsanaa isagoo xaalad fiican ku jiro soo laabtay xitaa halanka cunuga yare dadka waalaya uu isagii ayaa garaacayba kabiirkii kale Messi kama harayo caawo waxbaan kaaga sheegayaa cunugaana waalaya waxbaan ka dhahayaa
ka waran daawada qofka yimid qora buugaagta iyo sheekooyinka isuna bedelay shakhsi dilaayo oo geystay dambi dila intaa kadibna si dhiirranaan leh uga qoray buug dhan waxyaabihii uu ku sameeyey dilkan uu geystay. dabcan shakhsigani marka la eego waxaan uu sameynaya wuxuu u eg yahay inuu meel sare ka gaadhay kibirka iyo isla weynida waxayna u muuqataa inuu